wararka Gaza haatan aynu qoraansanno sidaad kula socoteen wararkaygii xalay iyo saaka militariga Israa'iil ayaa qaaday weerar kala duwan oo ka dhan ah maraykanka Gaza ilaa iyo xalay waxa la sheegayaa 6 qof in la dilay dad ka badan 20 la dhaawacay mar kale maanta ciidamada Israa'iil ayaa geystay duqeymo xagga cirka oo ay weheliyaan weerar madaafiic ah oo ay ka tuurayeen dababaadka dagaalka waxaana lagu soo warramay inay beegsadeen dhowr aag oo ku yaala gudaha waxa loo yaqaan qadka jaalaha ee Suuriyada Gaza telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil duqeymo ay ka fuliyeen gudaha qadka jaalaha ee bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta maraykanka Gaza madaafiicda ayaa sidoo kale la beegsaday deegaano ku yaala bariga Khan Yunis iyo tiro sidoo kale madaafiic ay halkaasi lagu garaacay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaysa in duqeymo kale oo xoogan laga geystay bariga magaalada Rafah ee koonfurta Gaza halka gaadiidka iyo ciidanka Israa'iil ay rasaas ku fureen dhanka waqooyiga maraykanka Gaza gudaha Gaza ila maxalli ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay qarxiyeen robadyo miino lagu soo xiray iyagoo ku qarxinaya guryo ku yaala Shujaaciya waxaana falalkan la sheegaya in ay yihiin kuwa kale oo dheeraad ah xadgudub ah oo ku wajahan xabad joojinta Hamas ayaa cambaaraysay weeraradan ugu dambeeyay waxaana ay sheegtay in Israa'iil ay beegsanayso dadka rayidka iyadoo xalay ilaa iyo saakana duqeysay aaga Al-Mawasi xeryaha barakacayaasha ay ku jiraan halkaasi oo teendooyin badan ay ku gubteen dhanka Israa'iilna booliiska iyo hay'adda sirdoonka ee gudaha Shanbed ayaa waxa ay sheegeen in Amir Malik oo 37 sano jir ah kana soo jeeda magaalada Asqalaan amaba Ashkelon lagu qabtay loona qabtay tuhun ah inuu u shaqeynayay Iran muddo bilaa Malik ayaa waxa la sheegay in uu ka helay $10 howlaha sirdoon ee lagu eedeeyay waxa la qabtay bishii la soo dhaafay iyadoo oo baaritaanku uu ka socday degmada Jerusalem iyadoo oo Shanbed ay ka qayb qaadatay baaritaanka laakiinse booliisku ma uusan faahfaahin waxa sirdoonku ku tuhunsan yahay maantay waxa lagu soo eedeyn doonaa la soo taagi doonaa maxkamad ku taala degmada Beersheba tani waxay imaanaysaa iyadoo hay'adaha amniga ay kordhiyaan dadaalkooda ku aadan ka hortagga waxa Israa'iiliintu ku tilmaameen Israa'iiliinta u shaqeeya Iran gaar ahaan tani markii uu bilowday bishii June iskoormaadyadii dhex maray Israa'iil iyo Iran hay'adda sirdoonka gudaha Israa'iil ee Shinbet ayaa dhawaan bedeshay istiraatiijiyadeeda iyadoo hadda la shaqeynaysa maamulada degmooyinka si looga hortago falalka caynkaasi ah isla markaasna dadka looga wacyigeliyo qatarta duqa deegaanka Batiyam Zavika Barot ayaa toddobaadkan ku booriyay dadka deegaankaasi in ay iska ilaaliyaan inay xiriir la yeeshaan wakiilada Iran isla markaasna waxa dadka lagu eedeynay arrintan amaba kuwa xiriirka la sameeyay Iran la dalbaday in isu soo dhiibaan isagoo tilmaamay in cawaaqib ay wajihi doonaan haddii falalkaasi ay ku sii socdaan sidoo kalena wararka Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaqiijiyay in uu qorsheynayo in uu booqdo New York inkastoo duqa cusub ee magaalada Zohran Mamdani uu ku hanjabay in uu qaban doono isaga oo raacaya amarka ka yimid maxkamadda caalamiga ee dambiyada ICC Netanyahu ayaa sheegay waan imaanayaa New York waxaana uu tilmaamay in haddii Mamdani uu dib u fikiro uu qirto xaqa Israa'iil ayna taasi noqon karto bilow wanaagsan oo wada hadala Mamdani oo ah siyaasi dimuqraadi ah isla markaasina noqon doona duqii ugu horeeyay ee Muslim ee New York ayaa horay u sheegay inuu taageerayo xaqa Israa'iil u leedahay jiritaanka Mamdani wuxuu ballan qaaday in uu amri doono booliiska magaalada New York si ay u fuliyaan amarka soo qabashada madaxda la baadi goobayo oo ay ku jiraan Netanyahu iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC ee ku taal magaalada Hague dalka Holland ayaa sanadkii hore waxay sheegtay in ay jiraan sabab macquul ah oo lagu rumaysan karo in Netanyahu mas'uul uu ka noqon karo dambiye dagaal iyo dambiye kalena aadanaha intii uu socday dagaalka Israa'iil ku wajahan Gaza kadib weerarkii Hamas 7 Oktoobar 2023 ay ku ekeysay Israa'iil waxay si adag u cambaaraysay eedeymahaasi maxkamadda ka soo yeeray iyadoo xustay in Mareykanka iyo Ruushka iyo Israa'iil ay yihiin wadamada aan saxiixin axdiga lagu dhisay maxkamaddaasi isla markaasna ay diidan tahay gebi ahaanba inay u hoggaansato amarada ka soo baxay maxkamadda ICC
waa tahay daawadayaal waxa aanu soo gaarnay xubinta falanqaynta oo aan alaaba ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan qubarada arrimaha dagaalka militariga ciidamada siyaasadda diblomaasiyadda iyo sirdoonka sidoo kale xubintan waxaynu ku soo qaadanaa arrimaha waaweyn ee warbaahinta caalamku wax ka qorto ama ay baahiso xubinta waxaynu ku soo qaadanaynaa waxa mar kale soo laabtay shakiga iyo ifafaalaha ku geedaaman qorshaha in dib u soo celinayo qorshaheedii guracnaa waa inuu dib u soo noqonayo qorshaheedii guracnaa ee barakacinta dadka reer qasa Israa'iil taasi oo liddi ku ah hindisaha Trump ee 20 qodob ka koobnaa oo dhigaya in dadka reer qasa aan lagu qasbi karnin in ay ka baxaan dhulkooda arrimahani waxa ay soo shaac bixin kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday in ay furi doonto marinka Rafah ee la iskaga gudbo Masar iyo Gaza si dadku ay uga baxaan Gaza balse talaabadaasi waxa si degdeg ah uga hor yimid dawladda Masar haddaba warbixin iyo falanqayn arrimaha ku aadan waxa soo jeedin doonta wariyahana Nimca Timcade Israa'iil ayaa mar kale dib u soo celisay arrinta ku aadan in Falastiiniyiinta ay isaga baxaan marinka Gaza taasi oo dhalisay dhowr su'aalood oo ku saabsan yoolka dhabta ah ee ay ka leedahay arrintan iyadoona lagu eedeeyay in si tartiib ah ugu diyaar garowday ku qasbidda barakicinta dadka reer Gaza ku dhawaaqista Israa'iil ay ahayd in isgoyska Rafah dhawaan loo furi doono kaliya dadka ka baxaya Gaza ayaa dhalisay dood cusub maadaama ay ku timid xaalado siyaasadeed oo gudaha iyo gobolka ah iyo isku day Israa'iil ay u fasirayso in qorshaha Trump uu iyada u adeegayo qabiirka arrimaha Israa'iil Maxamuud Yasbek ayaa sharaxay in talaabadani ay timid kadib booqashadii madaxa Shinbed uu ku tagay Qaahira taasi oo warbaahinta Israa'iil ay ku tilmaamtay mid fashil ah Yasbek waxa uu tilmaamay in ku dhawaaqista furitaanka isgoyska Rafah oo hal dhinac ah ay muujinayso doonista ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uga hadlayo mowqifka kooxaha garabka midig ee Israa'iil oo u muujinayo inuu fulinayo dalabkooda in Gaza laga dhigo meel dadku ay ka jiraan sida uu sheegay qabiirku Israa'iil waxay isku dayaysaa inay dejiso mabda'a bixitaan aan soo laabasho lahayn taasi oo ka hor imaanaysa nuxurka qorshaha Trump iyadoo Masarna ay ku adkeysanayso in la furi karin kala gudubka Rafah ilaa dhaqdhaqaaq uu noqdo labada dhinac militariga Israa'iil ayaa sheegay in furitaanka marinka uu ku koobnaan doono dadka haysta ogolaanshaha amniga Israa'iil iyadoo lala kaashanayo Masar ayna kormeyn doonaan midowga Yurub dhankeeda Masar waxa ay beenisay in jirto wax isku dibid ah oo ay la leedahay Israa'iil si marinka Rafah hal dhinac loogu furo waxayna ku adkeysay bayaan ay soo saartay inay u ogolaan doonto furitaanka isgoyska la isaga gudbo oo kaliya in labada dhinac ay u furmaan gelid iyo bixid sida ku cad qorshaha nabadda ee Trump madaxa waaxda warbaahinta dawladda Masar Diyaar Shawan ayaa talaabadani ku tilmaamay musiibooyin siyaasadeed oo Israa'iil ay wado oo aan waxba ka bedeli doonin mowqifka Masar استراتيجية إسرائيل كانت كتسمان واحد المبارك والتخصصي دراسات كاستراتيجية يا أمنية عالمية أيا شيء إن كوحدة ترامب أيوب بعدين تهيني هري وجد تلابد إسرائيل أي قادة يسوع كاتسمان waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in istaraatiijiyadda Israa'iil ay tahay inay cadaadis saarto Masar oo ay dhibaatooyinka u wareejiso dhankeeda iyadoo isku dayeysay inay soo muujisay inay fulinayso qorshaha Mareykanka xilli Qaahira lagu eedeynayo carqaladeynta sidaas darteed ayuu yiri haddii Masar ay diido mas'uuliyaddu waxay ka wareegi kartaa Tel Aviv waxayna u wareegi doontaa Qaahira isagoo tilmaamay in Washington laga yaabo inay cadaadis saarto Masar maadaama sida uu yiri ay iyadu ku xiran yihiin xuduudaha waxaana uu sidoo kale tilmaamay in go'aanka uu leeyahay dhinac siyaasadeed oo gudaha Israa'iil ah maadaama Netanyahu uu doonayo inuu muujiyo taageerada uu hayo fikradda dib u meeleynta dadka reer Gaza soo jeedin uu Trump soo bandhigay markii uu xilka la wareegay oo ku saabsan barakicinta reer Gaza dhankiisa Ibrahim Farxaad oo ah professor ku takhasusay khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan maxadka Dooxa ayaa aaminsan in talaabooyinka Israa'iil ay yihiin xadgudub cad oo ka dhan ah qorshaha Trump isagoo ku eedeeyay Israa'iil inay ka baxday qorshaha kadib dhamaadka wajiga koobaad ee yaraanta cadaadiska kaga imaanaya goobta dagaalka kadib markii la wareejiyay maxaabiistii iyo haraaga meedadka ku dhintay Farxaad waxa uu hadalkiisa ku saleeyay tilmaamo cad oo ay ka mid tahay diidmada Israa'iil ee soo jeedinta ergeyga gaarka ah ee Trump iyo Jared Kushner oo ahayd in la xalliyo arrinta dagaalamayaasha Rafah ee godadka ku go'doonsan iyadoo dib loo soo celinayo ama meel kale loo wareejinayo
waxa uu carabka ku adkeeyay in ku xadgudubkan uu muujinayo sii socoshada siyaasadaha Israa'iil ee iska indhatiraya xuquuqda aadanaha ee dadka reer Gaza isla markaana ka leexanaya ballanqaadyadii lagu qeexay wajiga koowaad ee heshiiska taasi oo keenaysa su'aalo ku saabsan suurtagalnimada ah in si nabad ah loogu gudbo wajiga labaad ee qorshaha. waxa uu ka digay in aamusnaanta Mareykanka ay jibinta ay abuurayso cabsi ku saabsan iskaashi qarsoon oo u dhaxeeya Israa'iil iyo Mareykanka taasi oo Israa'iil u ogolaan karta inay mar kale kiciso xaaladda oo ay ka faa'iideysato maqnaashiyaha cadaadiska gudaha ama dibadda si ay aragtideeda u fuliso. dhankiisa Yasbek waxa uu sheegay in casuumaadda madaxweynaha Mareykanka uu fidiyay Netanyahu ay ku soo beegantay waqti xasaasi ah maadaama Netanyahu uu wajahayo culays gudaha ah oo dhinaca garsoorka iyo warbaahinta isla markaana uu isku dayo inuu isugu muujiyo geesi bulshada Israa'iil. waxa uu xuseen casuumaadani ay noqon karto fursad lagu xalliyo faylka Falastiin laguna furo wadada wajiga labaad ee heshiiska xabad joojinta iyo isweydaarsiga maxaabiista. si kastaba haatee Fariixad waxa uu carabka ku adkeeyay in gudbidda wajiga labaad ee heshiiska uu weli ku xiran yahay mowqifka Mareykanka iyo awoodiisa uu ku joojin karo xadgudubyada Israa'iil halkii uu sii daawan lahaa. Nimcati Macade, HBN Online TV. ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda. isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahitiraha baahi loo qabay. Safari Remit. Tawfiiq Islamic Online تعلينتي ilmaha iyo tuba qoonta loo maro iyo cilmi taabagelintiisa tafsiirkii quraanka iyo toosinta caruurta waxa taas ku tilmaaman Tawfiiq Islamic Online xarunta barashada diinta islaamka ee casriga ah ee habka online-ka wax laga barto ee Tawfiiq Islamic Online waxa ay leedahay 3 qaybood oo kala ah qaybta higaada oo loo diyaariyay muddo cayiman qaybta xifdinta quraanka kariimka qaybta barashada shareecada sida xadiiska fiqiga siirada naxwaha tafsiirka quraanka iyo aqeedada iyo wixii lamid ah waxaana dugsiga kugu diyaara macallimiin rag iyo dumar bale oo u tababaran maadooyinka ay dhigayaan faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda